بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن ونكسن داوديال مال كصدفاء عالم كجوكتان كسودو هذا وركابين الرئيس تي في حرونتي سادحي مقالة مقدشو أنا وبهج عبد الله السلاد يا إنكو ديارا قضبضو وين وركياغا أتكو داون دونتان وحا كامدا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo magaalada Jidda uga qayb galaya meertada 32 ee shirka ururada dalalka Carabta weerar qasaare geysto lagu qaaday ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugnaa degmada Waajid ee gobolka Bakool xukuumadda Puntland oo ku dhawaaqay inay wada hadal la galayso siyaasiyiinta diidan doorashada qof codka ah ee ka dhacaysa deegaanada maamulka Puntland daawadayaal qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga ee u diyaar garooba kuwa iyo kuwa kale faahfaahsan iyo hadba wixii nagu soo kordhaa isku soo noqod wanaagsan daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Jidda uga qayb galaya meertada 32 ee shirka ururada dalalka Carabta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda shirka ka qayb galaysa la wadaagi doona xaaladda Soomaaliya Faysal Cabdi Farax ayaa eegaya faafahinta warkan madaxda dalalka xubnaha ka ururka jaamacadda Carabta ayaa waxa ay maanta kulankoodii 32 ku leeyihiin magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudiga madaxda shirkan ka qayb galaysa waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirkaas oo lagu gorfeynayo qadiyada wadajirka ah ee ay wadaagaan dalalka Carabta iyo arrimaha gobolka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu la wadaagi doonaa boqortooyada amiirada iyo madaxda dalalka Carabta xaaladda Soomaaliya guulaha laga gaaray dawlad dhiska dagaalka dhanka al-shabaab iyo xaqiijinta Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah shirkan waxyaabaha ku cusub ka qaybgalkiisa waxa kamid ah madaxweynaha dalka Syria Bashar Hafid al-Assad oo dalkiisa dabajoog uu ka ahaa xayndaabka Carbeed tan iyo sanadii 2011 oo ay dalkaasi ka bilowdeen dibadbaxyo isu bedelay dagaal lagu hoobtay Ahmed Abu Qayd oo ah xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta ayaa waxa uu sheegay in shirka Carbeed ee Jidda uu muujinayo soo laabashada buuxda ee dalka Syria ee ururka Carbeed xogayaha ururka ayaa talaabadan waxa uu ku tilmaamay mid fududeynaysa xalka colaadda ka jirta dalka Syria qaybgalka Bashar ee shirkan ayaa waxa ka dhashay guux xooggan iyada oo la sheegay in dawladda Qatar ay ka biyadiidan tahay inuu madaxweynaha dalka Syria dib ugu soo muuqdo madasha shirka madaxeedka Carabta mana muuqato inuu amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim oo kaga soo qayb gali doono shirka Jidda ka furmaya mana muuqato in amiirka Qatar Sheikh Tamim oo ka qayb gali doono shirka Jidda ka furmaya ee u madlan yihiin madaxda ku buhoobay ururka jaamacadda Carabta dhanka kale dawladda Lubnaan oo aan wali la dooranin madaxweynaheeda cusub ayaa waxa marnaan doona kursiga maamuuska madaxweynaha ee shirkaasi ila wareedyo siyaasadeed ayaa sheegaya in madaxda Carbeed ay ansixin doonaan shirka mashruuca 32 oo qaraarka hor yaala shirkaasi ay kamid yihiin qadiyadda Falastiin dhacdooyinkii Israa'iil ay ka geysatay deegaanka marinka Gaza iyo daanta galbeed xiisada colaadeed ee ka socota dalka Suudaan dadaalada socda ee Carabta ee lagu gaarayo xal xabad joojin waarta oo ka dhaqan gasha caasimada dalkaasi ee Khartoum sidoo kale ajendaha waxa kamid ah ku soo laabashada Syria ee ururka jaamacadda Carabta iyo doorka Carbeed ee dib u dhiska dalkaasi oo uu dagaaladu burburiyay xaaladda dalka Lubnaan maqnaanshiyaha xilka madaxweyne xaaladda dhaqaale ee dalkaasi iyo xaaladda maciishadeed ee ay ku sugan yihiin qaxootiga Suuriyaanka ah iyo kuwa Falastiinta waxa kale oo ay ka arinsan doonaan xaaladda ka taagan dalalka Yemen Soomaaliya iyo Liibiya sidoo kale waxa ay diiradda saari doonaan qodobo ay ka mid ka yihiin iskaashiga dhaqaalaha arrimaha bulshada isbeddelka cimilada iyo amniga guud ee qowmiyadda Carbeed weerar qasaare geysta ayaa lagu qaaday ciidamo Itoobiyaan oo ku sugnaa degmada Waajid ee gobolka Bakool weerarkan ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada Itoobiya Cabdirashiid Sandheere ayaa eegaya faafahinta warkan
warar dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal ciidamada Itoobiya iyo kooxda Al-Shabaab ku dhaxmaray qaybo kamid ah gobolka Bakool. Xogo dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal ciidamada dawladda Itoobiya oo kamid ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee howlgalo ka wada qaybo kamid ah koonfur galbeed Soomaaliya iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku dhaxmaray degmada Waajid ee gobolka Bakool kaas oo geystay khasaaro kala duwan. Dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Itoobiya ee ku lahaayeen degmada Waajid ee xarunta gobolka waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo muddo saacadaha halkaas ka socday. Goobjoogayaal oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay maqleen dhawaqa rasaasta madaafiicda ee isku adeegsanayeen labada dhinac. Sidoo kalena ciidamada Itoobiya ayaa adeegsanayay madaafiic xoogan oo si weyn looga dareemay degmada Waajid iyo deegaano hoostaga. weli ma jirto cid ka hadashay khasaaraha rasmiga ee ka dhashay, waxaana ciidamada Itoobiya dagaalka kadib ay sameeyeen howlgallo baaritaano la xiriira walow aan la sheegin ilaa hadda cid loo soo qabtay. Howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa kol hore waxa lagu dhidhiiri jiray inaysan qayb ka ahayn dagaalada lagu jiro kooxda Al-Shabaab, iyadoona howlgal xoogan tan iyo Xasan Sheekh markuu talada dalka ku soo noqday laga bilaabay qaybo kamid ah Soomaaliya. Madaxda sare ee dalka ayaa waxa ay ku baaqday in dagaal Al-Shabaab lala galayo lacagaha la galay, iyadoona dadka deegaanka ee macawiisleeda xilligan ay is aruursanayaan. Sidoo kale wararka laga helayo degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in xaaladdu hadda ay tahay mid degan, waxaana halkaas gacanta ku haya ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo la xiriira sida amniga loo xaqiijin lahaa, iyagoona sheegay in wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab laga bilaabi doono qaybo kamid ah gobolada Soomaaliya. Ciidamada dawladda ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ka wadaan deegaano hoostaga degmada Waajid, waxayna sheegeen in howlgalladan ay noqon doonaan kuwo sii socda. Waxayna ka codsadeen madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed in ciidamada la dhiirigeliyo, la garab istaago, loona baahan yahay in ciidamadan la qalabeeyo. Dagaalada ku soo noqnoqday qaybo kamid ah koonfur galbeed Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay madaxda sare ee qaranka iyo kuwa koonfur galbeed u qorsheynayaan in dagaalka la sii laba jibaaro, loona baahan yahay in dadka deegaanka ay si wada jir uga qayb qaataan dagaalka. Xukuumadda Puntland ayaa ku dhawaaqday in wada hadal la galayso siyaasiyiinta doorashada qof ee codka ah ay ka dhacaysa deegaanada maamulka Puntland. muran xoogan ayaa ka jira deegaanada Puntland kaasi oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka. Faysal Cabdi Farax ayaa eegaya faafahinta warkan. xukuumadda Puntland ayaa maanta oo Jimcaha waxa ay shaaca ka qaaday inay diyaar u tahay inay wada hadal la gasho siyaasiyiinta ka soo horjeeda ee mucaaradka isla markaasna diidan doorashada qof iyo cod ee ka dhacaysa deegaanada maamulkaasi Puntland. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland Cabdi Farax Juxa ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u tahay Puntland in ay wada hadal la gasho siyaasiyiinta dhaliishan sida ay u socoto doorashada golaha deegaanka ee Puntland, waxaana uu sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin inay siyaasiyiinta kala hadlaan arrimaha ay tabashada ka qabaan ee ku aadan doorashooyinka ka dhacaya Puntland. wasiirka ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in wax walba ay ku xallin doonaan miiska wada hadalka. xiisad ayaa ka dhalatay doorashada Puntland taasi oo ku aadan in siyaasiyiinta Puntland ee xildoonka ah ay intooda badan ka soo horjeesteen doorashada qof iyo cod ah ee golaha deegaanka ee ka bilaabanaysa deegaanada Puntland, waxaana taasi ay keentay in shaqaqooyin fara badan ay ka dhacaan deegaanada Puntland, taasi oo ay qayb ka ahayd qaarkood kuwa khasaare geystay oo weeraro ahaa, si gaar ah weerar ka dhacay duleedka degmada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa cadaadis xoogan la kulmaya taasi oo ku aadan inuu qabto doorasho inta waqtigiisa ka harsan, iyada oo wax ka yar hal sano ay uga harsan tahay waqtigiisa 4 sano. waxaana siyaasiyiinta maamulka Puntland ay ku cadaadinayaan in uu dhigo doorashada. qaarkoodna waxayba sheegeen in uusan diyaar u ahayn madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni in ay doorasho ka dhacdo, waxaana ay tilmaameen inuu wado qorshe uu ku doonayo inuu isbedel ugu sameeyo dastuurka Puntland si waqti dheeri ah uu ugu darsado xilligii la rabay inuu doorashada dhigo. waxaana ay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin in laga dabamariyo waqtigii loogu talagalay in doorashadu ay dhacdo. hadalkan ka soo baxay maamulka Puntland ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli Puntland ay cadaadis xoogan sidoo kale kala kulmayso oo ku aadan dhanka doorashada. xubnaha beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ku cadaadinaya in doorashada la qabto, iyadoona doorashada ay ka soo horjeedaan siyaasiyiinta Puntland. beesha caalamka waxa ay ku baaqday in si degdeg ah miiska wada hadalka loogu xalliyo
xiisada ka dhalatay doorashooyinka ka dhacaya Puntland. sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in aan laga tilaabsan karin cabashada ay qabaan xubnaha siyaasiyiinta ah ee xildoonka ah iyo kuwa dadka shacabka ah, waxayna maamulka Puntland ku amartay in ay qabtaan doorasho loo siman yahay oo aan ahayn mid hal dhinaca. muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika. burcad hubeysan ayaa la sheegay in muwaadinkan ay ku dileen gudaha goobtiisa ganacsi. wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in xal muwaadin Soomaaliyeed sidoo kale kamid ahaa ganacsatada ku dhaqan dalkaas lagu dilay deegaan hoostaga magaalada Cape Town ee dalkaasi. kooxo burcad Afrikaan ah ayaa lagu soo waramayaa inay dileen muwaadinkaasi oo kamid ahaa ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan deegaanka Philippi oo kamid ah deegaanada hoostaga magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in burcadka hubeysan ee u dhashay dalkaasi ku dhex toogteen goobtiisa ganacsi muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Daahir Cali Xuseen. kooxdan burcadka ayaa sidoo kale waxay dhac u geysteen dukaanka marxuum Daahir iyagoo intaasi kadib isaga baxsaday goobta sida uu sheegay mid kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ku nool deegaankaasi. ciidanka booliska dalka Koonfur Afrika ayaa dhacdada kadib gaaray goobta sida caadada u ahayd kuwaasi oo baaritaano ka sameeyay halka lagu dilay marxuumka. hase yeeshee wax natiijo ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay baaritaanka la sameeyay ma jirto. si kastaba Koonfur Afrika ayaa waxaa sanadihii u dambeeyay ku sii kordhayay dilalka, dhaawacyada iyo dhaca loo geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed ku sugan dalkaasi. mana jirto cid wax ka qabata dhibaatooyinka loo geysto muwaadiniinta Soomaalida ah ee dalkaasi u shaqo doontay oo iyagoo u badan dhaca, dhaawaca iyo dilalka loo geysto dadka ajaanibta ah ee ku ganacsada dalkaasi. isimada dhaqanka SSC ayaa xal ka gaaray shaqaqadii ka dhacday magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. isimada ayaa la kulmay labada dhinac sida madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Cabdirashiid Sandere ayaa eegaya faafahinta warkan. iyadoo maalmihii la soo dhaafay qaybo kamid ah Puntland ay ka jireen dagaalo iyo xiisado taagan oo ku aadan doorashada, kuwaas oo siyaasiyiinta xildoonka iyo madaxweynaha talada ku dhagan Siciid Cabdullaahi Deni ee halkaas ku dhaxmaray. isimada dhaqanka Puntland ayaa waxa ay la kulmeen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyagoona kala hadlay in loo baahan yahay in madaxweynaha uu u dhimriyo siyaasiyiinta xildoonka ah iyo dadka shacabka aan dagaal la gelinin. laba maalin wax ka badan ayaa garoonka magaalada Garowe u xirnaa iyadoona halkaas shaqaaqa la sheegay in ciidamo ka amar qaata wiil u dhalay Cabdiraxmaan Faroole ee halkaas dhibaato ka geysteen. wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Siciid Juxa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dowladda cidii wax ka tabanaysa ay la hadlayso balse dad dan gaar wadato ee dowladda Puntland ay la hadleenin. waxaa la gaaray shaqaaqadii habeen ka hor ka dhacday magaalada Garowe. isimada dhaqanka ayaa ciidamada waxa ay ku amreen in shakhsiyaad aysan amar ka qaadanin loona baahan yahay in nidaamka Puntland ay ku soo caanamaashay oo ah odayaasha dhaqanka la dooro. waxaa xal laga gaaray shaqaaqadii habeen ka hor ka dhacday magaalada Garowe, waxaana ciidamo ka wada tirsan Puntland oo halkaas ku dhaxmaray shaqaaqooyin balse kala taageersanaa hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo siyaasiyiin mucaarada ah. isimada dhaqanka Puntland ayaa xal ka gaaray shaqaaqadaas iyona ku guuleystay inay la kulmaan labada dhinac. mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in dadka ay ka dul dagaalamin loona baahan yahay in ay sugtaan kursiga, waxaana madaxweynaha talada haya ay kula dardaarmeen in dhankiisa loo baahan yahay in doorasho qabto. garaad jaamac garaad Ismaaciil oo kamid ah dhaqanka Puntland ayaa sheegay in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo u tagay magaalada Qardho in wax laga weydiiyo dhibaatooyinka ka dhacay Puntland, waxayna sheegeen in ay la wareegeen isimada dhaqanka in labada dhinac dagaaladooda ay kala joojiyaan iyagoona labada dhinac baaq u diray. hadalkan ka soo yeeray garaad jaamac garaad Ismaaciil oo kamid ah dhaqanka ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan xeerlaaliyaha Puntland uu sheegay magacyada afar kamid ah siyaasiyiinta ugu caansan Puntland in la soo xiri doono. wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland xasan Shire Abgaal oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuusan walwal ka qabin amarka ka soo baxay xeerlaalinta kaas oo in la soo xiro. wuxuu sheegay in xeerlaalinta uu ku shaqeysanayo Siciid Cabdullaahi Deni oo uu yahay nin dantiisa garanaynin. Puntland ayaa xilligan waxa ay cagaha la galaysaa foodo isqa qabsi iyadoona doorashada ay soo dhowdahay, waxaana mucaaradka ay ku doodayaan inay u baahan yihiin in doorasho xalaal la qabto walow Siciid Cabdullaahi Deni oo hadda ololihiisa oo ka wado qaybo kamid ah dowlad goboleedka Puntland. guud ahaan daawadayaal qodob wareedkaas ayaa ugu dambeeyay
warka habeen Rays TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho anigu Bahja Cabdullaahi Salaad ayaa idin la socodsiinaysay intaan dib dambe ku kulmi doono warkan warka xigaan idinku dhaafo sida iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.